madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo khudbad ka jeediyay shirka waxa uu ugu horeyn u mahadnaq ballaaran u soo jeediyay xukuumadda iyo shacabka reer Masar kadib soo dhaweyntii wanaagsaneed ee diiranayd ee ka marag furaysa walaaltinimada u dhaxaysa labada dal. madaxweynaha Djibouti waxa uu ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga walaaltinimo ee xoogaystay waxaana uu hoosta ka xariiqay rabitaanka Djibouti ee wasiinta iyo kor u qaadida xiriirka iyo iskaashiga xoogaystay ee labada dhinac. waxa uu xusay wadatashiga labada dhinac oo isku xog wareysteen xaaladda guud ee gobolka iyo tan gacanka cadmeed. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu ka hadlay aragtida ay midaysan tahay ee labada dhinac iyo kor u qaadida wadahadallada intii kulanka uu socday. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle waxa uu ka hadlay aragtida ay ka midaysan yihiin labada dhinac ee qodobada ay ka wada hadleen intii kulamada ay socdeen. madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay xambaarsan tahay rabitaanka iskaashiga iyo xiriirka siyaasadeed dhaqan-dhaqaale iyo ganacsiga ee labada dhinac iyo weliba ahmiyadda ay ku fadhido heshiiska wax ku oolka ay kala saxeexdeen labada wadan. madaxweyne Gelle ayaa waxa uu mar kale u mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Masar oo sheegay in mar kale uu muujiyay rabitaan iyo kalsoonida horumarineed ee iskaashiga mida dhalay intii kulanka socday.